بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، dhammaan maamulka macallimiinta dugsiga hoose dhexe sare ee Salaama waxaan salaan diiran u dirayaa anigoo ah Ustaad Axmed Cabbaas Maxamed, ahna madaxa imtixaamaadka ee dugsiga hoose dhexe sare ee Salaama. waxaan mahad iska leh Allah subxaanahu wa tacaala, allahaasoo noo ogolaaday in imtixaan bileedkii koowaad ee sana dugsiyeedkan 2023-2024 si habsami ah noogu fududeeyey bilaabashadiisa. imtixaanka wuxuu noo bilaabmay 11 bisha November sanada 2023. maanta oo ay tahay maalnimo Arbaca ah ee taariikhduna ku beegan tahay 15 bisha November sanada 2023, waxaan soo gabagabeynay imtixaankii shahrigii koowaad. ilaahay mahadiisa, barnaamijkan imtixaanka waxaa qayb weyn ka qaatay habsami socodkiisa maamulaha dugsiga. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ahaa macallimiinta oo dardargeliyey qabsamidda imtixaamaadka. sidoo kale waxaan mahad u celinayaa ardayda oo isugu jira heerarka hoose dhexe sare, sida wanaagsan ay ugu diyaar garoobeen ay una gudbeen imtixaan bileedka ahaa ayadoon jirin wax caqabad ah. taasna waxa ay ka ahaatay Allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa. ardayduna way maasan yihiin, dadaal dheeri ah ay soo muujiyeen. markastana waxaan leenahay arday dadaala u gaaraa insha Allah. waxaan rajaynaynaa imtixaamaadka horteena ah hadduu Allah ka raali noqdo sidaan iyo si ka daran inay u diyaar garoowaan. sidoo kale waxaan la dardaarmayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Salaama, inay iska dhaafaan gebi ahaanba kana fogaadaan waxa la yiraahdo qishka. sababtoo qishka faa'iido ma laha. ardayga waxaa laga rabaa inuu ahaado mid Allah subxaanahu wa tacaala ku tiirsan, kadibna nafsadiisa ku tiirsan. marka insha Allah waxaan jecelnahay mar walba haddii aan nahay bahda Salaama inaan soo saarno arday hufan, hubeysan, kuna hubeysan aqoon tayeysan. marka insha Allah halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii imtixaamaadka qabsoomadiisa insha Allah. tan iyo kulanti dambe. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.